bulshada ku dhaqan deegaanada Dooxa Dheer iyo Caad Saaran ee gobolka Sanaag ayaa guddiga dhismaha wadada Ceeldaahir iyo Cerigaabo waxay ku wareejiyeen deeq xoolo ah oo ay ugu talagaleen dadka dhisaya wadadaasi oo ay ka qayb qaadanayaan dhismaha wadadan oo hab isku tashiya lagu dhisayo. Wariyaheena Xasan Dhagayare ayaa warbixintan inoo haya. bulshada ku dhaqan deegaamada Caad Saaran iyo Dooxa Dheer ee gobolka Sanaag ayaa maanta waxay ku wareejiyeen howlwadeenada dhismaha wadada Ceeldaahir Cerigaabo 3 neef oo geela iyo 120 neef oo ariga oo ay ugu deeqeen shaqaalaha dhisaya dhismaha wadada Ceeldaahir Cerigaabo. wadadaas oo lagu dhisayo mashruuca iska wuxuu qabso ee Puntland ha isku tashato ee hore ugu dhawaaqay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Cali Gaas. iyadoo wadada Ceeldaahir Cerigaabo wajigeedu kuwada caratuura ay dhamaatay in ka badan 70 kilomitir ayna marayso inta u dhaxaysa tuulooyinka Rad iyo Gumar ee gobolka Sanaag. munaasabadan ay kula kala wareegayeen xoolahan bulshada deegaamada Caad Saaran Dooxa Dheer iyo guddiga wadada ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Sanaag iyo kan degmada Baran. waxaana mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay hadaladoodii kamid ahaa. iimaankiinu waa boqolkiiba boqol ma aha ilaa aad bixisaanin waxa aad u jeceshihiin xoolihiina. ilaahay xamdigii waxa ah oo wax ilaahay looga shukrinaqaa ah dadkan oo dad mudayiniina mid walba dhowr kun oo dollar lagu leeyahay inay ilaahay hortiimisana u bixiyeen maalkooda kii ay ugu jeclaayeen oo ishin iyo ariba leh. dadkii abaaraha soo maray oo simee heshay oo hambagoysu uga dambaysay baanu nahayoo taagtayada waxaanu isu tiilay oo nin walba wixii xiradii baaqi ugu nooday oo yaraa uu ka soo saaray hantidaa la magacribay oo halka laga magacaabay. waxaanu u soo saaray xagaafka Ceeldaahir ilaa Cerigaabo xiriirinaya baanu u soo saaray hor ilaahay baanu u soo saaray. yaasha duqa degmada Cabdirasaaq odayaasha kale oo gobolka odayaasha deegaanka Dooxa Dheer odayaasha kale oo iyana deegaanka Caad Saaran dib odayaalow xoolahan 120 neef oo ariga ah iyo 3 geel ah waa idinka gudoonay aadna baa ugu mahadsantihiin insha Allah labada deegaan oo kala ah Caad Saaran iyo Dooxa Dheer bay ka kala yimaadeen sidaan horeba u sheegnay. dadka ka qayb qaatana waxa ka asan hore u sheegay duqa degmada Cabdirasaaq Axmed Ciise annana waa idinka gudoonay jazakallahu khayr baan leenahay. dadka deegaanka degani waxay bixiyeen 120 neef oo ari iyo 3 tuldood oo geel ah soona baran maxaan ku raadayay deegaamadaas Dooxa Dheer iyo Caad Saaran waxay noqonaysaa wax yaaniga cid xoolaha inta leeg bixisay intii wadada socotay aan jirin. waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr sacyiga aad sameeynaysan iyo dadaalka aad sameeynaysan ilaahayna waa idin og yahay dadkuna waa idin og yahay dalkuna waa idin og yahay. waxaan bulshada kale aan ugu baaqaynaa oo gobolka Sanaag joogta inay ku daydaan bulshada deegaankan Dooxa Dheer iyo ceel magacle iyo Caad Saaran oo iyaguna ay maaragtay xoolahooda ay ku bixiyaan maxaan ku yiraahdaa wadada Ceeldaahir Cerigaabo oo maaragtay inoo soo jeediyay wadada ku bilaabantay ayaan inaguna qaybteena aynu qaadanaynaa oo la raawo waliba inuu qayb libaax aynu qaadano haddaynu nahay reer Sanaag insha Allah tacaala. qoliyaha maxaan ku yiraahdaa jaaliyadaha dibadana insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa markay arkaan dadkii reer guuraaga ahaa iyo deegaamadii yaryarka ahaa oo xoolaha inta alle ku bixinaya waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala iyaguna inay xoolahooda wax ka soo bixin doonaan oo wadada ku soo bixin doonaan si ay dhulkii ugu soo noqdaan oo hagaagsan oo laamiyada wadooyin ugu soo noqdaan insha Allah tacaala. Xasan Ismail Xasan Dhagayare TV-ga idaacadda dawladda Puntland.